koobka Premier League waa uu adag yahay mar walbana inaad ku noolaato nolol Arsenal ma sahlana. hase ahaatee Arsenal weli waxay khasaarinaysaa dhibco taasoo dhibaato u keenaysa coachkeeda Arteta. hase ahaatee khiyaari halkani waxaan ku fiirin doonaa ciyaaryahanada Arsenal injariga kaga maqan waa Saliba iyo Zinchenko. sidoo kale waxaan fiirinaynaa Arsenal transfergeeda iyo Arsenal seasonkan haddii ay champion noqon weydo waxaa la dhihi karaa season xun ayaa soo maray, mise waxaa la dhihi karaa seasonkan waa season Arsenal ay dadaal ay sameynayso, progression ay sameynayso. haatee marka hore haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar, haddii aad nala socotayna aad iyo aad ay u mahadsan tahay. aan ku bilaabay Premier League mar walba ma fududa in la qaado, hase ahaatee Arsenal waxay ku jirtaa xilli aad u adag runtii loo baahan yahay labadii game ee lasoo dhaafay in cashir ay ka barato si ay ciyaaraha u dambeeyo ay cashirkii hore ee loo soo qoray ay kaga akhrisato oo khaladaadkii ay sameynaysay dib dambe ay u sameynin. hase ahaatee aan ku bilaabo ciyaaryahanka Zinchenko ayaa gamekii u dambeeyayba Arsenal ka maqnaa, kaasoo la sheegay in uu dhaawac ahaan uu ku maqnaa, dhaawiciisana zaid uusan ahayn oo laga ilaalinayay in uu ku weynaado. hase ahaatee wararka waxay noo xaqiijinayaan in uu gameka Southampton diyaar ugu yahay, kaasoo la ciyaari doono berri oo Jimco ah. marka Arsenal fans halkaasi wax dhibaato ma jirto, ninka waa soo kacay. ka waran bal Saliba isaguna ciyaaryahanka waxaa la arkay asaga iyo Elneny oo labadooduba training sameynayaan. Elneny sida ogtiin laftirkiisa injury ayuu ku jiray, hase ahaatee gaar ayuu uu fitnesskiisa uu soo sameynayay. halka ayaana lagu arkay video labadooda ay waxaa ku ay trainingkooda ku sameynayaan. weli kuma soo noqonin Saliba full training. ciyaaryahanada Arsenal line-upkeeda hore halka ay ku training gareynayaan weli kuma soo noqonin. hase ahaatee wararka waxay sheegayaan in ciyaaryahanka dhiig uu ku jiro uuna doonayo gameka Man City ama ha caafimaado ama yuusan ka caafimaadin meesha inuu lugihiisa uu garoonka soo saaro oo Arsenal waxay ku qaadataba uu difaaco, taasoo la sheegay welibana in staffka ay u diidan yihiin ciyaaryahanka in uu uu garoonka lugta uu soo dhigo, ayagoo ka baqayaan in injuriga uu ku weynaado oo seasonka sidaa uu kaga dhamaado ilaa seasonka dambe qayb uu kasii qaato. hase ahaatee idinku akhyaaray maxaad ka leedihiin? waxaan jeclaan lahayd ninkan 26 April in uu boodigiisa uu soo dhiga garoonka Man City uu ka hor imaado oo la dardaro oo seasonka inta ka dhimana sidaa uu ku maqnaaday kan kalaba qayb ka mid ah. mise waxaad leedihiin war haja jabo hadinta hadduu rabay Premier League aan qaadnay ninka Haaland ha laga hor keeno? maxay leedihiin? ciyaaryahankaasna warkiisa waa intaa oo wuxuu doonayaa isaga ciyaaryahan ahaan in uu uu dheelo, diyaar buuna u yahay. hase ahaatee staffka ayaa waxay leeyihiin maya, culayskaas idil ma qaadi karna, ciyaaryahanka oo u baahannahay. waxayna leeyihiin hana iloobina in Premier League qaadistiisan ay ka horeysay in aan team aan dhisayno, teamkaasoo mustaqbal ahaan aan u dhisayno oo 10 sano ee soo socotaba in uu ahaado team hogaamiya Premier League. marka sida ayay dhaheen, idinku maxaa ka leedihiin? sidoo kale akhyaaray sida ogtihiin ba ciyaaryahankan Kieran Tierney ma ahan ciyaaryahan Zinchenko oo kale ah, inkasta oo defensively difaac ahaan Kieran Tierney waa u fiican yahay. hase ahaatee gamekii lasoo dhaafay waxaad arkayseen banoontaas quruxda badneed ee line-ka la dhex marinaya, dadka laga dhex saarayay ee jaanisyada faraha badan teamka u aruurinaysay u sameynaysay in uusan lahayn ciyaaryahanka, taasoo seasonkan dhammaantiiba uu Arteta uu ahaa ciyaaryahanka mar walba uu dooranhayo inuu ahaa Zinchenko. hadalkaasi waxaan usoo qaatay ninkii Crystal Palace sida arkaysay markaan la dheenaynay Thomas Partey in right back la geeyey, Ben White-na gadaal loo celiyey oo difaac la geeyey. taasi ma dhici doontaa oo ma sameyn doona Arteta? maadaama Arsenal intii uu Saliba maqnaaba dhaxdii iyo gadaal xoogaa cabsi ay gashay, ma laga yaabaa oo ma jeclaan lahaydeen inaad aragtaan in booskii Saliba Ben White la geeyo, Parteyna la geeyo right back halkii uu ciyaarayay Ben White, Jorginho-na dhaxda la soo geliyo oo sidaa hadda ka hor kuma cusba Arteta, hadda ka hor ayuu soo sameeyay. ma jeclaan lahaydeen? sidoo kale akhyaaray waxaad ogaataan Arsenal iyo Man City farqiga u dhaxeeya mar walba inuu yahay farqigii aan ku arkaynay labadii game u dambeysay, taasoo ah Man City mar haddii ay bilowdo team inay gool ka xirto oo mid labaad ugu darto in ay gameka ay finish ay ka dhigto oo ay dhameyso first half,
Arsenalna haatan la taagan yahay arrintaa ma laha oo mid ay u baahan yihiin inay akhristaan. Haaland waa aragteen wuxuu uu sameynayo Champions League, Premier League, meel uu dadka uu ku xishmeenayo male, balaaya ku dhacday ninkaas, wax walba dardar ayuu ku wadaa. Waana arrin loo baahan yahay runtii Arsenal in ay ka barato Manchester City. Geemka la dhameynayo first half mar haddii aad bilowdo waa ceeb inaad geem aad controlshay oo ciyaartaada lala yaabay in lagaa daba keeno mar walba oo 2-2 lagaga soo dhigo. Sidoo kale dhanka transfer haddaan u gudbo maanta wararka waa dadejinayaa. Reece Nelson ayaa Arsenal waxay u soo bandhigtay heshiis cusub. Ciyaaryahanka heshiiskiisa wuxuu dhacayaa sanadkan. Waxay u soo bandhigtay heshiis cusub kaasoo welibana ay lacagta uu qaato 35,000 ee hadda uu qaato ay doonayso in oo weliba loo sheegay in loogu kordhin doono, lacag loogu dari doono. Hase ahaatee ciyaaryahanka wararka qaar waxay sheegayaan in uu doonayo inuu noqdo ciyaaryahan mar walba bilaabo. Sida ogtihiin Saka iyo Martinelli meelay taagan yihiin, suurtagal uma aha Nelson inuu boos uu ka helo mar walba asaga u xoogsado, taasoo kalaabyo fara badan oo Aston Villa iyo West Ham iyo Newcastle ay ka mid yihiin in ciyaaryahanka ay ku doonayaan seasonka markuu saa u dhamaado inay free ku qaataan. Sidoo kale AC Milan ayaa ka mid ah dadka ciyaaryahanka aadka u raadinayo. Ciyaaryahankaas Arsenal ma reebi doontaa, sidee ku qancin doontaa? ayadana mid aan arki doono. Sida ogtihiin Arsenal Champions League ay aadaysaa, waxayna u baahan tahay ciyaaryahano aad u fara badan maadaama uu yahay Champions League aad u adag oo xalay Bayern waxa ku dhacay waa arkayseen si walba oo ay u sameysay in saddexda gool ay soo celiso way ka noqotay. Marka waxa loo baahan yahay team depth inaad lahaato oo teamkaada dhinac walba uu ka dhameystiran yahay oo kan haduu ka halaabo kan aad u baxsan karto kan haduu ka maqan kan aad u baxsan karto. Ciyaaryahanka Arsenal ma reebi doontaa, taasoo anigana isleeyahay ciyaaryahanka wuxuu isleeyahay hadda waa lagu wada arkay oo kalaabyo fara badan ay indhahooda aad soo jiidatay in Arsenal iskaga tago meel kale raadso. Haddii uu baxo balka warama Wilfried Zaha oo idin sheegay ciyaaryahan free ku soo tagayo kaasoo mar walba aadan ka shakinaynin ability-ga uu leeyahay inuu game uu akhriyo ama game uu kugu badiyo. Sidoo kale Declan Rice ee isaguna Arsenal ay raadinaysaa. Wararka mar walbana waxay soo celcelinayeen in Arsenal Declan Rice ay u badan tahay seasonkan inay keenaan. Dhowr marna hadee waa idan tusayo isagoo ciyaaryahanka Arsenal ciyaaryahanada la taagan oo shukaansi iyo waxba iska jirjira ma ogtahay. Ma anaga shukaansanayna misagaana shukaansanayo waa la garan laayahay. Ciyaaryahanka Declan Rice seasonkan waa ciyaaryahanka labaad ee ugu fiican in Bruno marka teamka laga qaato dib aad u soo ceshato. Ciyaaryahanka ugu horeeya waa Rodri, asaga ayaa ku xiga, Partey ayaa ku sii xigo. Ciyaaryahankaasna Arsenal runtii way daba taagan tahay, ma soo qaadi doontaa isaguna waa mid arki doono. Sidoo kale Arsenal hadii ay qaadi weydo liigan koobka, hadii qaadi weydo Arsenal ma season xun ayay soo martay. Roy Keane iyo shalay Gary Neville iyo rag badan oo lejano fara badan oo Premier League ayaa ka duudiyay shalay. Roy Keane wuxuu yiri Arsenal hadii ay koobka ay qaadi weydo season xun baa soo marayo aad bay u xumaayeen, way liiteen. Halka Gary Neville uu yiri xataa hadii Arsenal ay second ay ku dhameysato ay qaadi weydo Arsenal shaqo fiican ay qabatay. Waana run oo asaga ayaan ku raacsanahayo. Anaga marka aan liigan markuu bilaabanahay seasonkan hadda markuu bilaabanahay top 4 baa naga yeereysay. Dib dambe ma is aragnay anagoo intaan dadkii saa u hormarnay sijaayada meel fog ku fidsanay xabaarna waa soo hogaaminaynay league. Inkastoo aan jeclaan lahayn inaan qaadno, haddana inaan ilowna ma ahan inaan progression aan sameynaynay, inaan team yar aan dhisaynay, in ay aimkeenu uu ahaa in aan Champions League ciyaaraheeda aan kasoo qayb galno. Marka Gary Neville saga ayaan ku waafaqsanahay. Arsenal fans idinka arinta ku waafaqsantiin, Roy Keane baad ku waafaqsantiin oo Arsenal season xun ayay soo martay mise Gary Neville. Sidoo kale Arsenal gamekeeda u dambeeya ayaa kuwan ah. Gameka ugu horeeya waa Southampton oo gurigeena aan ku leenahay waa bari. Manchester City ayaa noogu xiga waa gurigooda ayaan ugu taginay. Chelsea ayaa isna guriga ayaa iyaguna homekeena imaan doona, halka Newcastle gurigooda ugu tagi doono. Brighton sidoo kale gurigeena ayaan ku casuumi doona. Nottingham Forest, Wolves ayaa ugu dambeyso. Haddaba akhyaaray intaas ayaan idinkaga tagayaa. Nabadgelyo. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.